qisadeena koowaad ee maanta waxaa waaye gabadhan waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan heblaayo uga tagay qof waxaa u baahanahay ilmahayga iyo gurigaygaba aan ku aamini karo marka qoftaas qof yacni ayadaba jirkeedii qaawan yahay oo nimanka ku dhacdhaceyso gurigayga kuma aamini kari subxaan allah qisadeena labaad ee maanta waxaa waaye maada dhahaya maya ma sameynaye maya ma sameynayo asoo ku hayo waalidku u imaadeen kadib maxaa kugu dhaca markaasuu dhaha waxaa ku riyooday nin cadaabti igu ridaayo oo igu dhahayo haddii aad naftaada soo deshid jahanamaa gelaysaa waana ku waareysaa jahanamo subxaan allah allahuma najina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran umusuuna waa idin salaam meel buu joogtaa soo dhawaada asxaabtii hore iila joogta iyo asxaabta hadda kadib nagu soo biiri doontaba insha allah waxaa idin leeyahay soo dhawaada gacan furan kusoo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada insha allah ayaantaa waxaa waaye daawashadii saa-id u yar ma aqaana wax qaldan waa iga caajisteena u malaynaa dad badan oo commentigii ugu dhiirigeli jiray oo maxaa lalahaa arki jiran ayaantan waa waaye ma aqaano waa caajisteen caajiska iska soo saara waa dareemi karaa culeys iyo waxaa iska jiro maanta waxaa idin wadaa laba qiso aad iyo aad cajiib u ah oo yacni aad ka heli doontaan biidnillaah sheer gareeyana biidnillaah see dadku u bataan waxaa waa iga caajisteen u malaynaa ma sheer gareysiin sheer gareen la-aanta waa ma aqaan waxa noola daawala ah dad badan ma jiraan oo daawanayo insha allah waxaa waaye meel fiican hadda maroonaa yacni ilaahay wuxuu dhahay la in shakartum la aziidanakum wala in kafartum ina cadaabi la shadiid marka waxaa waaye anigana ayaamahan waa iska xanuunsaday mar waxaa waaye taleefonka iga halaabay hadda nalkii iberiga ee qoraxda waxayn kugu soo duugoy hadduu duhur waaye marka insha allah waxaa waa culeysyo badana isoo saarsaarma laakiin alxamdulilah markii youtube-ka la fiiriyo aad u fiican yahay keliya waxaa yaraatay daawashada dadka xoogaa yar haddii marka yacni saa-id u dadaalno maxaa la yiraahdaa shuruudihii youtube-ka wax yara nooga dhiman way buuxsami rabaan taasaa in kugu hambaleynaya adinkana maxaa la yirahdaa isoo gaarsiiyey kun jeer waa mahadsantihiin abaalkeenan ilaaha gudo labada qiso maanta idin wado waxaa waaye qisooyinka waxaa loo soo bandhigaa lilcibra qiso walbana waxay yacni ku tusaalo ama maxaa la yirahdaa inaa yacni ku cibro qaadatid ee rabtaa oo maxaa la yirahdaa aa ka joogtid oo maxaa la yirahdaa insha allah aa iska ilaalidid oona uga digtid yacni qof kaloo ku dhaqmaayo haddii aragti waxyaabahaas oo kale labadan qiso waxaa waa mid waxaa waa guur oo yacni dhalinyarada markay guurka dalbanayaan oo kale waaridka siduu uga falceliyo midna waxaa waaye gabar yacni ayadana maxaa la yirahdaa isqaaqaabisay ayadana guurkeedii oo si qaab daran ama qofkii ay jecleed oo kaleeto sida uga tegay qaawanaanta ku nocoo kale marka labada qiso aan isla fiirino insha allah qisadeena koowaad ee maanta waxaa waaye gabadhan waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan ilaahay qurux iyo jamaal iyo maxaa la yiraahdaa qiimo oo iskugu daray oo yacni waa yacni qofkan bili-aadan ma dhamaystirna laakiin qof la yiraahdo dadka ee ku tilmaama yacni qofkaas maasha allah gacan ku sameys waa maloo marka laakiin qofka diinta haddoosan lahayn wuu aradan yahay gabadhan marka cilada keliya ee qabta waxay ahayd way qaawaneed waxay ahayd gabar nimanka dhex gasho dhalinyarada dhan maxaa la yiraahdaa ayaday soo aadi jireen si ay maxaa la yirahdaa ula sheekaystaan yacni hiblaayo way qurxanta mid walba ati ugu sawir oo kaleeto inoo la socdo dhalinyaradan yaa la socotoo kalaa lis dhahaa iskuulle waa lasoo wada warmaray ma ogtahay saasay ahayd gabadhan marka 3 gabdhood oo saaxiibo lahayd 3deeda gabdhood oo saaxiibada way wada xijaabnaayeen laakiin markii la dhaho qurux oo kale ayada camal ma aheen ayadana xijaab la-aanay ahayd jaamaca iskuulkii markii la dhameeyey adiga sanadadii ugu dambeeyey wiil yacni isku go-een yacni ardayda dhan iskuulleyda waa lisxantaa hiblaayi hibelow isla socdaan la dhihi jiray hiblaayi hebel hiblaayi hebel waa laisku xama jiray kadib gabadhii wiilkii wuu ka tegay waxaa la arkay wiilkii oo gabar kala guursaday gabar aad u xijaaban gabar aad maxaa la yirahdaa
kaleeto guursaday. Marka wiil saaxiibkiisa wuxuu ku yidhi hebelow heblaayo waataa saaxiibo aheedeen waataa isla socoteen maxaa kugu dhacay maxaa oga tagtay. Markaasuu wuxuu ku dhahay yacni waxyaabo oo yaab leh. Wuxuu ku yidhi yacni waxaan heblaayo uga tagay qof waxaa u baahanahay ilmahayga iyo gurigaygaba aan ku aamini karo. Marka qoftaas qof yacni ayadaba jirkeedii qaawan yahay oo nimanka ku dhacdhaceyso gurigayga kuma aamini kari. Subxaan allah. Yacni waxaa dareemay gabdho badan oo maanta joogaan. Waxaa arkay wiilal badan inay la socdaan hal wiil oo inuu guursado ku haminayo malaha. Midka ugu ciyaal suuqsan, ugu fadareysan, ugu hadalka xun, ugu qaabta daran maraba gabadhaas qaawan inuu guursado. Inuu la socdo meelaha is istaago wuu ogol yahay. Laakiin haddii la dhaho xaasa ku noqoto wuu maseera yacni qiira ku jirto ma ogolo. Marka inteena badan hadda way dhacdaa dhalinyarada gabdho oo waxaa jiro wiilasha iskaga dhex jiro iskuuleyda xataa marka ay aheedeen waxaa arki jirnay gabdho yacni oo wiilasha iska maxaa la yiraahdaa aan ka xishooneynin iska taabanayaan oo kale iskala socdaan jaamacadoo kale xiisadahoo kale marmarka qaar isla goynayaan banaankaas oo laisla taagan yahay liajli hadhowtii oo kaleeto markii aa weydiisin oo ku dhahaa war qoftaas wax ma gasha camal igawad maxaa ku falaa camal oo ku dhahaa. Marka gabdho waxaa idin dhihi lahaa xijaabka yacni waa quruxdaada waa noloshaada waa mustaqbalkaaga weligaa yacni qaawanaan quruxa u arkin. Yacni adiga ahaantaada maskaxdaada inta fikirtid oo fadhiisatid waxaa dhahdaa yacni nanac fiiqan oo maanta dhan ku dhaceyso maxaa la yiraahdaa tisxiga wasaqda waxyaabo badan ee ku dhacayaan bakteeriyada iyo nanac oo maxaa la yiraahdaa daboolan oo maasha allah sajaleysan adi naftarkaaga yaa qaada laheyd. Marka gabadhan usoo laabta qisadeydii gabadhan waxay sameysay markuu warka wiilka kale ku dhahay meelay taagneyd way maqashay yacni way fakartay way murugtay waxay ku noqotay ama kaagay ku noqotay waxay dhahday yacni waxaan ilaahay raalli kama ahan waxaan aa sameynaya wax fiican ma ahan wiilkaa saaxiibka la aasaasoo iiga tagay qurux waa leeyahay maanta maxaa liigu nacaaya diin la-aana aheyso waa qaawanahay keliya. Gabdhihii ee saaxiibada la aheydna oo wada xijaabnaa dhammaantood waa la guursaday. Ardaydii jaamacadda la dhiganaysay kulligood way guursadeen ayada bisaas u hartay. Kadib ilaahay u laabatay way xijaabatay adi sanado badan kadib ilaahay wuxuu u sahlay rajul oo saalix ah oo wanaagsan ayadii oo noqotay gabar asturan oo muxajabada oo aad u qurux badan ayayna guursatay. Qisadeena koowaad ee maanta halkaas ayay ku dhammaatay. Waxaana ka faa'iideynaa in uu yahay xijaabka ama iyo asturnaanta in ay tahay wax aan wax la siista lahayn. Qisadeena labaad ee maanta waxaa waaye wiilkan wuxuu kasoo jeedaa famil faqiir ah oo yacni wax badan aa haysanin. Aabihiis yacni meelaha waaweynka wuxuu geeyaa shaah uu soo wareejiyaa. Kadib adiga galbihiina maamada ama hooyadiis oo yacni guriga dhar ku tasho dharka ilmaha ayuu soo wareejiyaa si uu u dabaro nolosha gurigooda iyo labadiisa gabdhood astaqfirullah laba gabdhood oo wiilkan la dhalatay iyo wiilkan oo dhigto kuliyadda maxaa la yiraahdaa dhakhtarnimada barto faculty of medicine health adiga dhakhtarnimo uu baranaya wiilka marka kuma qanacsano familka uu ka dhashay wuxuuna ku qanacsan wiilkan waxaa ku jirta meesha caasinimo wiilkan wuxuusan ku qanacsanayn familka uu ka dhashay oo faqiirka ah kuma qanacsano magaalada markuu maraayo isla weynina ku jiro familkaasa ka dhalatay miya kuliyadda uu baranayo oo waalidkiisa ee u dooreen oo dhakhtarnimada ee waalidkan uu isdhahayo yacni wiilkiina beri dhakhtar hadduu noqdo meel fiican oo kaga soo baxaa yacni lacag fiican uu qaadanaya kadibna wuu idin kabi doonaa dhibkan rafaadkan waa ka bixi doontiinna ma ku qanacsano jaamacadda wuu iska dhigtaa adi dhowr maroo wuxuu damcay inuu wadanka dibadiisa aadiyo waxyaabahaas waalidkiiya marka waa culeys iyo bareshara lagu hayaa adiga sidii uu ku joogi jiray wiilkan jaamacaddii uu iska dhigi jiray mar walbeeto shalay waalidkii iyo asagii buuq maalin walbeeto isdagaal jaamacaddaa lagu qasbaa jaamacaddii markay 1 year oga dhimantaa ama sanadkii ugu dambeeyay oo taqarrujka jaamacadda uu dhameynayay ee la maraayo
ayuu gabar bartay. Gabadha uu bartayna ay tahay gabar aad iyo aad u akhlaaq xun oo ficilo xunxun sameyso oo yacni gabdhaha wanaagsan aa ahayn adiga yacni wax badan oo khatar ah ku dhacdo. Kadib waalidkiisa ugu imaado wuxuu dhahay gabadhaas aan u baahanahay waa inaa ii doontiin. Hooyadiis carabta waa lasoo baaraa yacni way raadisay gabadha familkeeda iyo amuuraheeda iyo shu'uunta ku xiriirsan iyo qoftaan see tahay iyo nooceeda iyo waxay qabatay soo ogaatay. Kadibna waxay soo ogaatay inay tahay gabadhan gabar aad iyo aad u xun, nimanka dhanna shabiso, danta ay ka leedahayna ay tahay nimanka inay inta shabaq geliso, lacagta iyo waxyaabahaas oo kale ee ka dhameyso, dan kalena aysan ka lahayn. Nimanka way soo dabtaa oo keliya takhasuska ama maxaa la yiraahdaa khibradeedaba ama aqoontaasayba active ku tahaba inay nimanka soo dabto. Yacni way jiraan gabdho la dhaho hiblaayo waxaa waaye nimanka waa shabisaa camal. Qofka saas oo kaleeta xataa ma guursado, maxaa yeelay waxaa ku wareerayaa qofkoo dooro lahaa mustaqbal ahaan because hebel kana u fiican yacni maskaxdii aa wareerayso. Qofka bini'aadanka yacni hal qalbi uu Ilaahay siiyey, halkaas qalbi waa inuu hal qof u jeedaa si uu u fahmo yacni noloshiisa meesha u jeedo. Qofkan beri hadduu kugu xumaado waxay ku dhahayaan gabdhaha qaar marka la sheekaysatid aa dhahdid hal qof aa la bartaa, halkaas qof bini'aadan waaye. Hadduu xumaado adi intaa xumaan lahayd asaga inuu xumaadaa fiican, adi intaa nafsi gali lahayd in nafsi lagaa galaa fiican. Waxay ku dhahayan marka aniga yacni oo qofkan igu tumana camal, qofka aniga maxaa la yiraahdaa ii sheeg kii u boqolaal aa ii joogtay. Marka adigana hadhowtii kaa jaranta boqolaal markuu joogto banaanka horta gabadha markay banaanka joogto qofkay rabtay la hadli kartaa, xorriyaday leedahay. Laakiin waxaa fiirisaa qofkaa rabtid adoo la hadlaysid inaa miisaan sameysid oo kale xataa 3 qof 2 qof camal la hadal, 2 qof tawaasun u sameey qofkan intuu ku fiican yahay, kan diinta ku fiican yahay, akhlaaqdiisa beel waa saan waa hakada. Shuruudee gabar walbo wadataa, shuruudahaada ka tix ka fiiri. Qofkan kaleetan usoo laabo shuruudihii ka tix. Kii aa ku aragtid 5 shuruudoo kala wadataa ama 6 aa wadataa, 6daas hal ka mida qofka ee ka maqan tahay qofkaasaa afdal laakiin 6dii qof ay 3 ka maqan tahay haddii oo u jeesatid ka waran oo qof hal ay ka maqan tahay aa ka tagtid noloshaada soo qasraan ama khasaaro ama inaa nolosha ka dhacdo kaleetay kugu kalifeen. Marka qisadeena usoo laabtay gabadha noocaasay ahayd. Hooyadii wiilka waxay ku tiri ma kuu doonayna mana u baahnayn waa laga diiday. Wiilkii yacni shoogo isku riday wuxuu guriga isku xiray wuxuu taagan yahabow haddaa gabadhaas lii doonin waa isdilaa saanaa yeelaa kanaa yeelaa. Jaamacaddan awalba qatiyaan ama qaatir billaah looga taagnaa ma fahanti. Nin awalba jaanis raadinayo jaamacaddii imtixaankii wixii la galaya dhan wuu ka baaqday. Sanadkii ugu dambeeyana wuu marooyaa subxaanallah. Guriga isku soo xiray aabihiisna marka moobeel oo jeclaayo ogaay moobeelkii aabihiis usoo gaday guriga u gargaraacay oo ka furay moobeelkii u geeyey wuu farxay. Marka wuxuu dhahay soo bax aabe iraac salaad cishaa isla tukanayna. Salaadii cisho isla tukadeen. Wiilkii asaga ma og wuxuu u faraxsan yahay moobeelkaas dartiis waa haddana inuu isdilo iyo gabadhii uu ka fekeroyaa. Kadib waxaa dhacday salaadii markay ka baxeen aabihii duco soo bixiyey. Ducadan waxaa qof kastee muhiim u tahay oo muslim ah. Waxaa waaye sunnatu nabi waaye, sunnada nabigeena waa sallallahu alayhi wasallam. Yani waxaa waaye ducadan ayaantan waa iloobay yacni waa iloobay waxaa ka wadaa markaan jiifanayo awal mar walba aqrisi jiray ma aqaan ayaantan wax ugu dhacay ilaahay rabbi na soo haday waa iska maba igu soo dhaceysaba. Marka aabihii uu usoo bixiyey wuxuu dhahay ma intaadan jiifan ka hor ducadan ku celi aqriso yacni ducada maasha allah waaye. Waxa waaye bismika rabbi wadactu janbii wabika arfacu fain amsakta nafsii farxamhaa wain arsaltahaa faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka saalixiin. Bis wiilkii wuu jiiftay ducadii wuu aqristay wuuna weyse qabay ducadina waa aqristay wuu seexday. Kadib salaad subaxii markii waagi soo bariyey wiilkii qeylinayaa soo kacay subxaanallah wuu riyoonayay. Waalidkiisa ku soo ordeen maxaa kugu dhacaa lahaa wiilka waxaa loo imaada dhahaya maya ma sameynaye maya ma sameynayo asoo ku hayo waalidku imaadeen. Kadib maxaa kugu dhaca markaasuu dhahay waxaa ku riyooday nin cadaabti igu ridaayo oo igu dhahayo haddii aa naftaada soo deshid jahannamaa gelaysaa waana ku waareysaa jahannamo. subxaanallah allahuma najina. Kadib wiilkii jaamacadiisii u laabtay
jaamacaddii marka u laabtay subxaan allah yacni qofku ilaahay jecel yahay oo wuxuu tusiyaa hidaayo kadib markuu jaamacaddii oo u laabtay wuxuu yacni loo sheegay in gabadhii xabsi la geliyey eena sameyso wax aad aad u xun oo fawaaxish ah wiilkii waxaa ku dhahay wuu soo laabtay waalidkiisa u soo orday labada lugooda ka shumiyey wuxuu dhahay waxaa yacni maxaa la lahaa dembi iga celiseen qoftaas qof xuna ahayd ma ogeen kadib jaamacaddii uu dhameeyey jaamacaddii markii uu dhameeyey oo yacni dhigtoor soo noqday maasha allah dadkii dhan way u hambalyeynayaan qof kasteeto wuxuu leeyahay hambalyo 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 wuu soo laabtay waalidkiisa u imaaday wuxuu dhahay waxaa ogaaday inaan nolosheyda iyo nafteyda le aniga aan ka fikeraysiin si xuna u fakaraayay iska kii cafiya waalidkayaa tihiin wax fiicana ii doorteen wixii xumaa waa iga celiseen tan oo ah jaamacadda digtoornimada yani dadka loo dooro waalidiinta horta soomaalidana way sameeyaan aniga waxaa arki jiray gabdho oo yacni jaamacadda ila dhigto oo facultiga aan isla baranayno waxaa arkay maba soo galayso xiisadda ma dhiganayso markaa dhahayd hiblaayo maxaa kugu dhacay ma waxaan baratid adii faa'iido kuu tahay waxay ku leedahay ani waa liigu soo qasbay maxaa iga qusay camal marka waalidiinta waxaa kuna tali lahaay in horta sida yani waalidkaas cunugooda ula socdaan oo kale soomaalidana ulama socdaan ilmahooda waxaa waaye waalidka soomaalida cuntada cunuga la siinaa jaamacaddiis aadaa la leeyahay jaamacaddii ma tegay ma la dhahaayo wax ma soo barta ma la dhahaayo wax ma baranin ma la dhahaayo imtixaan ma gala ma la dhahaayo ma gasha ma la dhahaayo ma baasta ma la dhahaayo yacni waa waxyaabaha soomaalida ilmo waxbaa la baraa laakiin lagama warhaayo wax u sababan ani ma fahmi karo waxa u sababa yacni ilmihii midhaatirada ka bateen miyaa ma ogi iyo dadkiioo mashquulkooda iska badan yahay waalidka cunugiisa maba ka warqababo marka walaahi way dhacdaa in waalidiin badan ilmahooda ku qasbaa marka waxaan dhihi lahaay ilmihiina ha ku qasbinina wax aysan diyaar u ahayn aysan rabinin qofka markuu maskaxdiisa ay joogto waxuu bara karaa laakiin haddii oo yacni wixii aada jecleen ma bari kartid marka waalidka waxaan dhihi lahaa cunugaaga haddaa ratid inuu meel fiican kasoo baxo wuxuu jecel yahay bar amase markuu yaryahoo kaleeto kasoo dhaadhici cunuga markuu yaryahay 7 jir uu yahoo kaleeto aa lasoo diyaariya waxaan kusoo baraa garee soo bar soo jecleysii waxyaabahaasoo tustusi kusoo weyneysii yani asoo wixii rabo adhabtad oo imaana mahano marka qisadeena labaadna halkaasay nagu dhammaatay asxaabey waxaa kula dardaarmayaa inaa muuqaaladan sheer garaysiin aad iyo aad u mahadsantihiin yani wax yara hadda noo dhiman waxaa waaye ha caajisinina guushiina way dhowdahay insha allah biidni illaah waxaa idinkaga tegayaa asalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan kulmi doono videoga xigo